Saabiriin Cabduqaadir Isxaaq waa gabar ganacsata ah macruufna ka ah suuqa bakaaraha iyo suuqa Islii ee magaalada Nairobi. Saabiriin waxa ay ka ganacsataa dahabka muddo ku dhow 12 sano. 18 bishan ciidanka booliska ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen lacag si sharci darro ah dalka ku soo gashay, taas oo aysan cadadeeda sheegin. Maanta oo Jimco ah waxaa magaalada Muqdisho isugu yimid dhaqanka culimada aqoon-yahanka haweenka iyo guud ahaan waxgaradka beesha Mudulood, taas oo ay ku cadeeyeen lahaashiyaha lacagtii lagu qabtay aeroboorka Aadan Cadde ee Muqdisho in ay leedahay gabadhaasi ganacsatada ah muwaadinka Soomaaliyeed. Sidaa darteed odayaasha ayaa ka soo horjeestay in la siyaasadeeyo hantida gabadhaasi oo ay ku sheegeen tirada lacagta 1 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Nabadoon Gacal Maxamuud Maxamed, Nabadoon Xasan Culusow, ugaas Sheekh Cabdisalaam Sheekh Xasan iyo gudoomiyaha golaha midnimada hogaaminta beesha Mudulood Xaaji Maxudiin Xasan Afrax oo madashaas ka hadlay ayaa dowladda ugu baaqay in si degdeg ah gabadhaas hantideeda loogu wareejiyo mar haddii la hubiyay. u baaqaynaa marka anagu maadaama aan odayaasha dhaqanka oo lacagtaas dadka iskale dadka ay ka soo jeedaan aan ka midnahay waxaan ku baaqaynaa haddii booliiska wax u gacan galeen inaan annagana waxaan la lumin booliiskana sumcadiisa la dilino wixii lunsan oo ay arkaan oo baadiyo hoy qabtaan ilaa qofkii lahayd ay ka arkaan inaysan si fudud farhooro uga bixin horta ku baaqaynaa. xoolahaas annagaa leh, mar lamaad annagaa leh, mar saddexaad annagaa leh, wax siyaasad ku shaqale maahan, waa xoolo ganacsata annaga jufadeena ka mid oo ay leedahay, weliba dad haweenuhu leeyahay, weliba ciyaal agoomuhu sida la sheegay ay wax ku leeyihiin. dowladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay Mudulood wuxuu ahay hooyada Soomaaliya, hooyadana inay kacdo ma fiicno mar haddii guri hooyadii joogto ay ka kacdo waxaan dhibahayn laga dheefsamaha. Mudulood waa hooyadii Soomaaliya, dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay hooyada ixtiraamto intaan oo cuqaal iyo culimaadudiin salaadiin nabadoono dhaqan duubab ay u yimideen gabadhaas xaquuqdeeda oo la haayo in loo deeyo. marka hore geel markuu cabo ceelay markay heshiida geel biyo cabaa Soomaalidu dhigi jirtay, gabarta marka hore in loo soo deeyaan codsinaay bilaa sharuulaan, kadibna guddiga iyo waxgaradka uu Mudulood u saari doono dhaqanka dheeftaas iyo wada tashigeeda in ay dowladda qaabisho ayadoon wax dhib lahayn sharuudna lahayn ay noo soo deeydo. intaas ayaan ka codsanaynaa. aquuli qowli waxaan u qaylinaynaa waxa waaye in aan siiyo dadka xirana xurmadoori la siiyo, xoolaha laga shakiyay nan laga shaki baxo dadka loo hayaa leh waa isla jiraan inaan helnaan codsigaas aan soo jeedinaynaa. dhibaato kale ma jirto in wax la baaro waxna la arkana raaliyan kana waana ku farxsanaa, laakiin hubsasho kadib waxaan rabnaa wuxuu sayihiin in markaas dhamaadka hore uu saas u ekaado oo xoolaha iyo cidileed ay isku wareegaan saacadan laga bilaabo. saasaan ka codsanaynaa hay'adaha ku shaqada leh oo faraha kula jira, saasaan u sheegaynaa wajiyadeena yaqaanin wasiiradiyaa jooga, xildhibaanadiyaa jooga, akhyaaraha joogta, cid kasta oo laga shakiyo cid loogu tagay leedahay oo jaranjaro waaye. waxaan leenahay marka xoolaha la hayana la helo, wiilka iyo gabadhana xurmadoori hala siiyaa. saasaan leenahay. Kulanka ayaa laga soo saaray bayaankan waxaana warbaahinta u akhriyay Dr. Cabduqaadir Cabdullaahi. waxaan halkan ka cadeynaynaa in lacagtaas uu waday wiilka xoghaynta u ah Saabiriin ay tahay cadadeedu 1 milyan oo doolar. lacagtaas waxaa iska leh Saabiriin Cabduqaadir Isxaaq. Saabiriin waa gabar ah ganacsato macruufna ka ah suuqa bakaaraha iyo suuqa Islii ee magaalada Nairobi. Saabiriin waxa ay ka ganacsataa dahabka muddo ku dhow 12 sano. sidaa darteed waxaan ka soo horjeednaa in la siyaasadeeyo hantida gabadhaas ah muwaadinka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan rabnaa in aan halkan ku soo gudbino cabasho ka dhan ah qaar ka mid ah booliska aeroboorka Aadan Cadde, booliska aeroboorka, taasoo la xiriirta in ay rabaan in ay mugdi geliyaan tirada lacagta iyaga oo ka faa'iideysanaya hadalkii ka soo yeeray taliyihii booliska dowladda federaalka Soomaaliyeed
markii uu ummadda Soomaaliyeed u sheegay in ay jirto lacag lagu qabtay garoonka aadan cadde saabiriin waxa ay haysataa cadeymo milkiyad lacagta iyo tiradeeda sidoo kale waxay haysaa cod laga duubay qaar ka mid ah saraakiisha aeroboorka oo ay uga dalbanayaan lacagta in ay barka siiyaan si aysan u fashilmin cadeymahaas waxaa la wadaagi doonaa laamaha amniga iyo cadaaladda markii loo baahdo sidoo kale waxaan haynaa fariimo qoraal ah oo cadeynaya in ciidamadu isku dayeen in lacaga badan ay si xoog ah uga qaataan gabadhaas ganacsatada ah ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya in saabiriin iyo wiilkaba la siiyo xorriyadda iyo hantidooda arrintan ayaa markii ay soo ifbaxday dood badan ka abuurtay warbaahinta iyo baraha bulshada inkastoo booliska aysan sheegin cadadda lacagta saabiriin waxa ay haysaa cadeymo milkiyadda lacagta iyo tirada sidoo kale waxa ay haysaa codad laga duubay qaar ka mid ah saraakiisha aeroboorka oo ay uga dalbanayeen in lacagta laba loo qaybiyo inta aysan fashilmin waa sida ay ehelada saabiriin sheegeen waxayna ka digeen in mugdi la geliyo lacagtaas oo si gacan tuugaaleysi ah loo qaato cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho